wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay ardayda ka qalin jebisay dugsiyada sare oo sanadkan ka qayb galaya imtixaanka shahaadiga sanad dugsiyeedka 2017-2018 waxaana kulankaasi soo qabanqaabiyay midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed taa oo lagu qabtay magaalada Muqdisho. ujeedka kulankan ayaa ahaa su'aalo ay weydiinayeen ardayda wasiirka waxbarashada oo u badneed imtixaanka sanad dugsiyeedka iyo sida loola dagaalami karo musuqa iyo qashka. sanadii la soo dhaafay waxaa jirta in ardaydu ka cabatay in imtixaanka si cadaalad loo saxin oo ardaysay u dadaalayeen oo ay filayeen inay natiijooyin sarsare keenaan ay heleen natiijooyin hoose kadibna ay ka dhiyooteen waxbarashadoodii sida adigu haddaba ka dhawaajisay in la iska ilaaliyo qishka iyo waxyaabaha la midka ah. wasaaradda inay caawiso dadka wax haysanin oo maxaa lahaa danyarta ah inay ku caawiso deeqaas waxbarasho ay bixinayso. waxaan kaloo jeclaan lahaa wasaaradda inay nasiiso waxbarasho tayo leh oonan lahayn qish iyo musuqmaasuq dhan oo ka baxsan waxbarasho sax ah ayaa rabnaa min wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan ayaa ardayda kula dardaarmay in ay isku kalsoonaadaan nafsadoodana aysan qiyaamin aqoontoodana ay ku tashtaan. mawduuca dhanba wuxuu ku saabsanaaba musuqmaasuqa iyo qishka waxaas oo iska ilaalino kaasaan xoog saarayna kasoo imtixaanku ahaa laakiin in ardaydu isku kalsoonaadaan in ardayda ma arkaysaa nafsadooda aysan khiyaanin tusaalooyina usoo qaadanay ardayda Soomaalida markay baxaan ee deeqaha waxbarashada ay dibadda tagaan in waxbarashada ay wadi waayaan sababta keentay waxa waaye mustawahooda hoose mustawada inuu hoose maxaa keenay in ama taada waxbarashada yarta laakiin mid kamid ah waxa weeye imtixaanka oo ma arkaysaa ay qish uga soo gudbeen marka waxyaabahaas waan kala talinay ayagana waxay talo nagu keeneen inaan musuqmaasuq aan la dagaalano oo waxay yiraahdeen ardayda deeqaha waxbarasho hesho oo ma arkaysaa wasaaradda inta badan imaanayso waa kuwa xildhibaanada ay dhaleen waa kuwa wasiirada ay dhaleen waa kuwa lacagta haysta war anaga masaakiinta maxaa ma arkaysaa noogu tala gashay wasiiro taasna runtii waxay ugu reebtay raad calooshayga xanuunisay waana waxa aan rabo in ma arkaysaa aan bilownay aan howl ka qabanno in arday soo dadaalay oo maskiin ah oo ma arkaysaa aan awood u lahayn inuu ma arkaysaa deeq waxbarasho lacagna ku helo awoodna aan u lahayn aan haysan political backup iyo ma arkaysaa kaxaynayso oo laakiin soo dadaalay number 1 galay inuusan bixin. imtixaanka shahaadiga sanad dugsiyeedka 2017-2018 ayaa lagu wadaa in maalinta Sabtida ah taariikhduna ay ku beegan tahay 19 uu ka bilowdo magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya marka laga reebo magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan fatahaadda webiga Shabeelle uu ka sameeyay awgeed. Axmed Cumar, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.